عليكم أمة المسلمين تعلمان وايد سلام يا مقعي وحنا محمود نو وحنا يا أساسات شركة الأديب أونلاين ماركت هدوريا إن كور بحيو قابكي أديب أونلاين تقول شقيسو ملاه لقيه الكرو هي أديجيد أي إديك إدين حسو معاميش يدريو ولي على بحر يبي كمبنية لنا دنيا برودة بينا يروح يسير أديب أونلاين ماركت وشركة ير وإنترنت كنحسك شقيسة إسلام مركان حرمة كل سبع وطن وكمية سوماليلاند بوتلاند إيه سومالي يدعو أديكيد أي هيسو دمان تدرو لهلي كرو سبع وطن بشدة كله سبع وطن أي هلي كران على كستو وشركة لغوكا شركة حكو شقيسا سوقين تعصب يدعو وده حيسا قفك ألابت إيبينية إيو قفك ألابت إيبسينية sidoo kalena qofkii alaab u baahan in waddanka dibadiisa looga keeno sida China, Turkey iyo meelaha kale oo qofka u dalbado alaabaha looga keeno waxyaabaha cajiibka ah shirkadda ku shaqeysa waxaa ka mid ah in ay la shaqeyso kambaniyadaas oo iyagu adduunka meelo badan ka jira kambaniyadaas oo kuu suurtagelinaya in aad online ku shaqeysan karto oo aad baradhagoodii alaabtooda iibin karto oo aad noqon karto member ka mid ah shirkadda وألابتي سكرة شركته وحيدين سو كرسي أديجة أو كم تحي كونغريسكا تقدر بيعرضها وكونغريسكا تقدر بسسك الشركة ده مثلا زي كتير ستدخل غلط إن قف يسوي كل شيء تشوفه وصوت البنكر والله كونغريسكا وإذا يدق قيم أو تكيكرا قف كستو أو بركاس وباهم إنه سفر أو مكاو dibadda oo muraad leeyahay in shirkadu ay kala taxaliso qaabkii qofka soo bixi lahaa tigidhadii diyaaradaha iyadoo loo soo qangaraynayo waxyaabaha kale ay shirkadu soo waxaa ka mid ah dadyoga xanuunsanaya doonaya caafimaad ku baxaan dalka dibadiisa in ay ka saacidayso qaabkii caafimaadka loo baxay iyadoo markaasi la shaqeysa jooga sida Turkiga oo kale أي شركة يسكت عليها كاسة على ساعة في مكان تركي لبضة وحكى له شركة يسوع كبيسي أفكي وخبرشتوني إنه ستوكي هندية ملاحة سكرة تشاينا إن أي كاسة على شركة دو تانك يدو أورس كرنسا جامعة أورسقط البلد كبرتو inta shirkadiya adeegyadu ku koobna qof kasta oo alaab iska iibinaya amba ganacsada ah oo doonaya ganacsigiisa in loo xayeysiiyo ama dadka bulshada loo gaarsiiyo Soomaaliyeed oo dhaqan dhulka Soomaalida shirkadu waxay dalan qaadaysaa in ganacsigiisa uu shaqeyn doonto isla markaana ay iibin doonto waxyaabaha kale ee dheeraadka shirkadu ugu qabanayso waxaa ka mid ah in ay samayso barnaamij toddobaadle ah oo shirkadu page-keeda ka bixi doona oo loogu magacdaray barnaamijka xayeysiiska ganacsiga oo qof kasta oo anaga macmiil noo ah oo wax naga gartaa iyo meherad kasta oo anaga ku xiran nahay waxa naga iibsado product aan gacanta ku hayno amba isagu anu iibino alaabta uu soo hayo in barnaamijkaasi lagu qaadanayo doono isagoo markaa bulshada loo gudbin doono alaabaha uu hayo iyo meesha uu ku yaalo iyo sida looga faa'iideysan karo waxyaabaha jibka uu bulshada ku soo intaba shirkadu waxay dhalinyarta xirfadda leh isla markaana aqoonta leh ee doonaysa in ay shaqaystaan ku abuuraysa fursooyin ganacsi oo ay ka mid yihiin ka dhex shaqaysiga ama ka dukaameysiga internetka dhexdiisa qof kasta oo hibale waxaa ku taageeraysa in hibadiisa socoto sidoo kasta qof kasta oo ay ka go-an tahay inuu shaqaystaan waxay markaa kambaniyada ay shirkadu xiriirka la leedahay ee dalka gudihiisa dalka dibadiisa ahba fursad ganacsi uga qaadanaysa sidii qofkaasi u horumari lahaa ganacsigiisa oo u gaari lahaa sidoo kale shirkadu waxay dhawaan bilaabi doontaa trayno dhanka internetka ah oo sida loogu tukaamaysto Amazon, Alibaba, eBay, Corosio duuban ay soo dhigi doontaa si ay uga faa'iideystaan ka ganacsiga iyagoo markaa iyo gurigooda jooga laba saac ama hal saac ay ka shaqaysan karaan internetka dhexdiisa white house Amazon dawooyin kala inuu qofku si sahlan ugu keeni karo China iyo adduunka meel kasta oo alaabta uu soo u baahdo shirkadu adeegyada barnaamijka
وأنا مركب الظهر يسموه شركة العلوم أو التكنولوجيا الكلية شركته waxay leedahay qof kasta oo daneynaya inuu ka qayb qaato amba hala hado heerar internet amba hala hado heerar markaas soo offline amba hala hado qof productska iibinaya alaab amba qof doonaya inuu ganacsiga soo galo fikir cusub ayuu doonaya fikirkiisaas inuu ka dhaqaajiyo amba qof doonaya inuu barto cilmiga internetka amba qof doonaya isagu inuu garanaysaay barasho u baxo amba qof doonaya isagu inuu garanaysaay dibadda qabto oo muraad kale u leeyahay doonaya qof doonaya dibadda laabo keeno waxaba waxay idinku soo tagminaysaa in laga faa'iideysto iyadoo markaa laga heli karo website-keena si online available oo ugu laga soo dalban karo qofku 24 saac meel kastoo caalamka ka joogo sidoo kalena waa application-keeda Play Store kala soo degi karo oo si yar fudud u isticmaali karo isagoo oo si maalinle ugu helaya wax kasta oo isagu u baahdo shirkaddu waxay ku ballan qaadaysaa in alaabtaada meel kasta oo ay ka shaqayso ku geynayso iyadoo macmiil aanad ku yeelanayn oo Somaliland kaliya hadda Somaliland degan tahay hadda Puntland degan tahay Puntland laakiin guud ahaan aan ku yeelanayn waxaan mar labaad idinku soo dhaweynaa shirkadda Adeego online market and service company waa company-gaagii adigu maanta haddii aad ka mid noqoto dadyo kale oo ku taageeraya fadlan waa noqo macmiil ama waa naga mid noqo oo ka mid noqo dadka Adeego online memberka ka ah waa ummadda Soomaaliyeed waxaan isku wada baahan